hawshii sida dawladda ku doonayo. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي أيو ما سيهاي مدعوين أحمد أنتي كورسي هذا الشيء هذا الذي وناكسنا ويأرجن ماذا يو تاريخ ذا كوساب سنة آدي أي وهاي مناسب من هالكن لقى جديو مركب هو الرئيس وحن رباهنا وهم بليايو xubnaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maanta horteena jooga halkan ku dhaartay magaca Ilaahay wax ka weyn oo ka macna badan oo lagu dhaartaahina ma jiraan aan islaahay waxba idin ma dhinna meeshii ugu dambeysay ee qof bini aadan lagu aamini karay mas'uuliyad loogu dhiibi karay waad ku dhaarateen duruufaha dalkeena maanta sugan ayaa keenay in sida walaalkii Axmed uu sheegayay in magacii qabiilka iyo maxaan ku yiraahdaa magacii Ilaahay iyo mas'uuliyadii wixii inay si uun ay isugu dhaxyaacaan waxa keena duruufaha laakiin waa ka gudbaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhiyan markii hore waan wada garanaynaa taariikhdii markii la qorayo mar walba waxa loo qaybin jiray gobolada iyo degmooyinka dalka oo dhammaan inta loo qaybiyo ayaa laga soo qori jiray markaas kadib inta la isku keenay hadana la isku dhafaaya hal tababar la wada siiya ay sida ciidan maxaan ku yiraahdaa Soomaalida oo dhan ka kooban ay u ahaan jireen hadda waxaan isleeyahay magacii iyo muxuu ahaay hal laga bedelo hadii la doono laakiin waa uu sidii uun degmooyinka hal laga soo qoro oo dalka oo dhan hal laga soo qoro markii la lahaana waxa looga dan lahaa waxay ahayd Soomaalida oo dhan ha ku jirto oo ka muuqato oo ka mid ahaato haatan muxuu ahaay sida la yeelay ujeedada laga lahayd dhinaca fiican yaan ka qaadayna waxay ahayd Soomaalidu ha ka wada mid ahaato ha ka wada muuqato ayaa muhiimadu ay ahayd hala micno tira iyo hala qabiileeye iyo hala muxuu ahay magaciisi marna ma ayan ahayn marka tii wadadii un baan qaadnay muhiimadu waxay tahay ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka koobmaan dadka Soomaalida oo dhan sheekada iyo dadaalka iyo effortiga isku dhafkana intaas uu ka socday duruufahaas keenay in la yiraahdo maxaa raasana ku yimaado oo hal loo wada dhamaan reer hebel ma joogaan warwaana anigu waa laga tira badan yahay 100 aan ahay kaasina waa 200 waa un iman kartaa laakiin aniga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid maahi mana ka tirsani dadna kuma lihi sidaas daraadeed aniga ciidankaygii maaha inaanay dhicin waayo ujeedada ugu weyn oo aan rabnay inta kadib maalintaas ay waxaasi dhacayn tababarka aad soo marteen dhaarta maanta aad dhaarateen dhammaan waxay tahay inaadan shaqo ku lahayn maxaan ku yiraahdaa meeshii aad ka timid iyo sida aad ku timid laakiin waxa maanta kelmadaha maanta aad ku dhaaratay xilka aad qaaday waa midaas muxuu ahaa maanta wixii ka dambeeya lagu la xisaabtamayo 20 iyo dhowr sano way nagu filan tahay wiilal badan qiibi badan dhiirana yaa ku soo dhintay oo ku soo dhaawacmay oo qaarkood curyaamiin maanta ku yihiin iyagoo aan la garanaynin sababta ay u dhinteen reer hebel oo isdiray iyo beerti reer hebel iyo geeli reer hebel difaaciisa marka macna badan runtii ma ayaan lahayn wax aad iyo aad u xanuun badan murugo badan laga xumaaday ahayd inay dhacaan laakiin maanta waan soo aragnay waan ka nimiday maanta wixii wax ugu qiimo badnaa ee qofka bini aadamka naftiisa inuu u huro ay ahayd waa midda dalka diinta dadka amaanada maxaan ku raadaa sharafta iyo haybadda waa midda maxaan ku raadaa macnaha loo leeyahay loo nool yahay ee loo jiro marka waan rajaynaynaa Ilaahay idankiis in arintaasi ayna wada deeqdoon meesha u istaagno waxa soo haray ninna xantiisa ma moogaa la yiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xamar sooma dhaafaan iyo sheekada oo madaxweynuhu ka hadlayay hadda xagee u soo dhaafayeen meel u soo dhaafaan ma qabin hadda u bay qabaan meel u soo dhaafaan marka maanta wixii ka dambeeya la qiimeynaya inay xamar soo dhaafaan iyo inaanay soo dhaafin maanta iyo wixii ka dambeeya ayaa muxuu ahay la ogaanayaa muxuu ahay wixii dhiman sidoo kale waxaan rabaa inaan bogaadiyo una hambaliyeeyo guddigii uu horkacayay wasiir dawladda wasaaradda gaashaandhigga ee ka koobnaa xubnaha kala duwan ee dadaalka ka geystay sidii aan maanta halkan u soo istaagi lahayn oo aan u imaan lahayn bilow fiican waaye laakiin shaqo badan u dhiman halkan shaqo badan uga dhiman tahay deegaanada iyo maxaan ku raadulkan gobolada Jubbooyinka shaqa uga dhiman wali ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed
awoodeenna maanta tiradii loogu talagalay weli ma dhammaystirna marka howlo kale oo deegaano kale iyo maxaan ku raahday dhul kale oo ka tirsan maamulka Jubbaland ay u sii safri doonaan oo inta ka sameeyeen oo kale ay ka sameyn doonaan haddii alla yiraahdo inta kadib waxaan rabaa inaad ogaataan waa jeclaan lahaa taliyuhu uu ka hadlay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya asaaskiisii laakiin odayaashii jooga biriga ciidanka la asaasay qaarkood inay inta noo yimaadaan nooga hadlaan maalintaasi duruufihii lagu aasaasay tabartii la lahaa awoodii jirtay waa la garan karay maantana waan tabar daranahay intii uun baan joognaa waanan ka imaanaynaa meeshii 60kii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inta ka yimiday 70meeyadii uu soo gaaray waa la ogaa oo muddo maxaan ku raahdaa dhowr iyo 10 sano ah oo ku soo gaaray ciidamada Afrika kuwa ugu xooga badan ugu discipliinka badan ugu maxaan ku raahdaa xirfadda iyo aqoonta badan ugu tababar adag inay noqdeen haddana inaan meeshaas iyo meel ka sii waliba qarniga 20aad oo wax badan oo casri ay soo kordheen meeshaas iyo meel ka sii fog inaan gaarno wax diidaya ma jiraan waana gaarina ilaahay idankiis marka waxaan rabaa inaan arintaas waa midaas wixii tabardarri iyo awood yari ee xadida waa halkeed laakiin ciidan qaran oo dalkan uu leeyahay in la dhisaahay mabda ay naga tahay mana ka gaabinayno waanan ku dadaalaynaa haddii alla yiraahdo halkaan uu ka bilowday isku dhafku uu socon doonaa dalka oo dhan ciidan xoog dalka Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka kooban ayuu noqday qaybtii koobaad waaye dadka jubbooyinka degan in la isku dhafo oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jubbooyinka joogay uu ka koobmo dadka Soomaalida ah ee gobolada jubbooyinka ku nool waaye qaybta koobaad ama fayska koobaad ee hadda la dhaqaajiyay sidaas oo kale ayaa meelaha kale oo dhan laga soo sameyn doonaa fayska labaadna waxay noqon doontaa haddii aan leeyahay kan Jubbaland jooga iyo kan Puntland jooga iyo kan Koonfur Galbeed jooga iyo kan Galmudug jooga iyo kii meel kasto Muqdisho jooga inta ka dhaxla haddana in dib la isugu dhafo haddana la isku sii daro oo maxaan ku yiraahdaa ay marka ay noqdaan Soomaaliya oo dhan oo isla socota inay noqdaan kooxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama unuga ama horinta ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muuqaal Soomaaliyeed inay leedahay saa marka loo eego alla ilaahay waa muuqaal Soomaalida oo dhan way ka muuqataa in la dhihi karo waaye hadafka loo socdo oo aan bilow ka nahay maanta meesha aan joogno aan bilow ka nahay aad iyo aad ayaan arintaas ugu han weynahay waanan gaari karnaa waanan gaari doonaa ilaahay idankiis waxaan rabaa markaa inaan hanbariyo ambaliyada ku soo waxaan rabaa dardaaranka war annagu dalkan annaga iskale mas'uuliyadiisa waaye waxaan u dhaaranay adigu maanta u dhaarateen annaguna aan horay ugu soo dhaaranay dhaartaas inaan ka dhabayno waaye dalka inaan ku soo celino dawladnimo dalka inaan ku soo celino amni iyo kala dambeyn iyo meel qawaaniintu ka taliso oo aanay maxaan ku raadayay kooxaha iyo qabaa'ilka iyo maxaan ku raadayay firqooyinka iyo waxyaabaha kala qaybsan aanay ka talin laakiin qawaaniinta iyo shuruucda iyo shariicada iyo wixii aan ku ballanay meel ay ka taliyaan inuu noqdo waayo dalka waxa muhiimka markaas ayaa karaamadeen iyo dhameystiran ay soo noqonaysaa waxa naga dhaxeeyo oo tilmaamayo oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mas'uuliyadiisa ay ka mid tahay xil saaran yihiin waayo calanka maxaan ku raadayay jamhuuriyadda dhowristiisa ilaalintiisa dastuurka jamhuuriyadda ay leedahay ilaalinteeda waxa dadku ay leeyihiin oo qiyamka iyo dadka ay leeyihiin oo diinta islaamka ku salaysan oo shariicada ku salaysan oo dhaqanka suuban ee Soomaalida ku salaysan oo waxyaabaha in la ilaaliyo ay tahay waay hadaati waati laga hadlay xilliga nabadda xilliga colaadda waay dhaqanka suuban ee la doonayo waxaan rabaa dardaaranka marka ugu muhiimsan oo waxay tahay mas'uuliyadaha aad qaateen waxa kamid ah dadka Soomaalida inaad u nuglaataan oo u jiljilcanaataan qofka Soomaaliga markaad la macaamilaysid inaad wax walba ka jilcan tahay ka maxuu ahay degan tahay maxaan ku raadayay kan naxariis badan tahay wax walba yaa la rabaa qofka Soomaaliga ee muwaadinka markaad la macaamilaysid markaad cadawga la macaamilaysid inaad wax walba ka adag tahay yaa la rabaa oo aadan marna u dabcin u naxariisan u turin fursad aadan siinin cadawga hadii alla yiraahdo waxaan leenahay idin leeyahay wiilashii ummadda ayaa tihiin ma aydin wiilashii reer hebel ma aydin wiilashii degaan hebel iyo gobol hebel ma aydin wiilashii maxaan ku raadayay cid gaara iyo waxaad tihiin Soomaaliya wax ka weyn
oo la qaato oo lagu istaago oo magacaas loo qaatana ma jiraan waxaan rabnaa mar kale aan ayagana sidoo kale u hambalyaynayaa maamulka Jubbaland oo aan leeyahay maamulkan jiritaankiisa la'aantii suurtagal ma ay noqoneen inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aasaasno oo aan abaabulno oo aan xoojino tababarno qalabayno maanta meesha aan soo gaaro suurtagal ma ay ahayn meel kasto kalena maamulada ka jiro dhan waa sidaas waxay fududeynayaan jiritaanka maamuladaasi waxay fududeynayaan oo ay u yihiin saldhig in dawladnimadu ay dhisanto ma aha kaliya midda oo maxaan ku raadayay maxalliga ah oo maxaan ku raadayay deegaamada ma aha kaliya midda qaranka inay dhisanta ayaa maamulada ku meel gaarka ee maanta dalka ka jiray waxay u yihiin awood waxay u yihiin fursad iyo maxaan ku raadayay agab ay ku dhismayso dawladnimadii ay u yihiin jiritaanka maamulka Jubbaland federaalka contributions uu ka leeyahay oo la dagaalanka argagixisada dib u xoreynta dalka baahinta dawladnimada ee dalka oo dhan in la gaarsiiyo dhismaha ciidanka maxaan ku raadayay xoogga dalka Soomaaliyeed soo kabashada dawladda iyo waxa dhamo dhiman oo dhan ayaa maamul la'aan lama sameey beero kala degan qoryo isu haysta iska soo horjeeda in badan aan soo ahayn waa noogu shaqeyn weyday wixii hore inaan marka u gudubno maamulo oo Jubbaland ka jiro oo Koonfur Galbeed ka jiro oo Galmudug ka jiro Puntland ka jiro meelaha dhiman waxay asal u tahay ay adeeg u tahay dhismaha dawladnimada qaranka meelan maamul ka jiro oo reera degan yihiin waaba degan yihiin Soomaaliya oo meel walba reera degan laakiin reerahaas wax ka dhaxay aanay jirin waraa beerta boodkeeda ay soo riixin waraa maxaan ku raada ceelka marka aanu ka cabayo adigu ka cabin war maxaan ku raada adiga maxaad gabadhanada u dharbaxday oo maxaad u aragto xumays waxaas ku mashquulsan in aan naf ka dayno ma aha waxaasna waa inaan ka ilaalino ka daaweyno oo aan ka kala celino oo ka kala ilaalino inaan isku dirino oo isku waxismin dawladnimada inaan helno waa inaan dawladnimada bas aan ku kala ilaalin karna kuba kala ilaalin karna wax kale maalin walba odayaasheena dhaqanka ee wanaagsan markay isku yimaadeen inay dib u heshiisiin galaan oo beelo isdar ay ku yeeyaan mid ciyaal suuqa inta soo baxa mid qof kala dilay markaas reer hebel dilay intay noqoto hadana meeshii dib uga soo laakiin kaas ciyaal suuqa markii inta la soo qabto maxkamadda la geeyo waxa dambiga uu galay inta lagu xukumo xabsiga loo diraahay reer hebel dilay ma cidi ka dambayso wax sameynaysa sidaas u bay noqonaysaa dambigu waa shakhsi reer hebel la yiraahdo dambiilayaal ama jiraan reer hebel la yiraahdo muxuu ahay malaa'ig ilaahayna ma jiraan reer hebel waxay ka goomaan shakhsiyaadkaasna mas'uuliyadda dambigu waa shakhsi dawlad la'aantu waxay keentay mas'uuliyaddii dambiga inay caam noqoto oo la yiraahdo reer hebel baa xagga ku duulay reer hebel wax dilay reer hebel xagga ka dhacay waxa in la yiraahdo dawladnimaan u baahannahay dawladnimadeena waa raadka aan ku socono waaye waan isku tagnay mar hore oo aniga iyo Axmed iyo ragga kale maanta talada ku jiraabi aanay tala ku jirin yaa inta Soomaalidu isku tagtay waxay dhahdeen dawlad aan dhisanaynaa haye say u dhisanaynaa dawlad federaal aan dhisanaynaa oo taladu ay baahsan tahay oo maxaan ku raadayay dadku ay ayagu hoos u tashadaan oo ay maxaan ku dhaqmaan tiya lagu dhaqaaqay ma garanayo sababta dad badan ay u jeclaan lahaayeen inay arkaan taasoo 100% sax ah war waa bilaab shalaba ma ay jirin maanta way bilaabatay waan turxaan bixinaynaa waa cilada bixinaynaa wixii ka dhimanaa ku dareynaa wixii zaa'id ku aan ka dhimaynaa laakiin waa sii soconaynaa berina way qurxoonaanaysaa waana hana qaadaysaa hadii alla yiraahdo kalsoonida inaan isku kalsoonaano oo annagu aan isku tanaasulno oo aan maanta beriya ka fiican berida fiican aan gaarna aan dhaano hor u socono haddaan maanta ku mashquulno meesha fadhino ka dhaqaaqi weyno berida fiican oo ku wada haminayna ma gaarino maanta bilow aan nahay laakiin waxaan rabaa inaan sheego bilow fiican aad u qurux badan dadnimo iyo dawlad dhisid ay ka muuqataan nahay wax badan aan noo qabsoomay wax badanna waa naga dhiman yihiin laakiin waxaan qabnaa waxa naga dhiman meeshii naga jirayna waan garanaynaa sidii aan ku gaari lahayna waan garanaynaa dulqaadkii wadada dheer aan sii marayno inaan ku dulqaadano ayay nooga baahan tahay mar kale hambalyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga federaalka maamulka Jubbaland ee ka qayb qaatay guddigii ka koobnay dalka oo dhan hadda eega guddigaasi kama koobno oo kaliya dawladda federaalka maamul goboleedyada ku jira maxaan ku yiraahdaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku jira wasaaradda gaashaandhigga ku jirta
caalamkii oo nala joogo nakaabayo oo dhan ayaa qayb ka ah oo ku jira si aan baa muxuu ahaayay xalaal daraarta cad wax la isku laablaaba iyo wax la waxay laakiin hal mid aan rabaa war waxa wax ugu fiican hal mar ma sameyn karno laakiin waxa iyo xaaladda maanta aan ku sugannahay mid ka fiican aan u gudubno mid yara dhaanto oo horumar u ka muuqdo aan u gudubno si waxa wax ugu fiican ee fog aan arkaynahay aan u gaarna barri hadii aan leeyahay haday tahay dawladnimo haday tahay ciidan dhisid haday tahay muxuu ah wax walba aan taas u qancino inaan eber ahaano meesha aan joogno aan joogi jirnay aan joogno iyo inaan wixii wax ugu fiicnaayo halkaa aan haysano waxba u dhaxeeyo safar dheer u dhaxeeyo meelo lagu sii hakada u dhaxayso meelo laga sii biyacaba u dhaxayso meelo laga sii shidaal qaata u dhaxayso si loo gaaro meesha ugu dambeysay ilaa idinkiis waan gaaraynaa wadadiina waan haynaa waana ku guulaysan mar kale hambalyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed khaasatan wiilasha maanta horteeda fadhiya ee halkaan magaca Ilaahay ku dhaartay oo aan wada maqlayno marqaati ka ahayn aan berrina aan ku soo oogino marqaati oo Allah ilaa maalinta magaca ku dhaaranaysay goob joogan anuu ka ahaa waxa muuqda oo taliyaha iyo saraakiisha iyo taliska iyo wasaaradda iyo madaxda dalka iyo madaxda maxaa dawladda idu kala xisaabtamayso waa waxa muuqda oo loo jeedo laakiin waxa la barbardhiga waxa aan muuqan ee adiga qalbigaaga ku jira ogow midda aad u dhaar midda muuqata faldambiyeedka aad gashan waa lagu qabsanaa waa lagu ciqaabaa maxkamada ciidamadu leeyahay waa lagu geynaya waa lagu xaynaya laakiin qalbigaaga midda aad la dhuuma karto midda aad qarsoon karto midda aan loo jeedin midda ma marka qaarkood kalmadaha fiican iyo warka fiican iyo qawaaniinta fiican inta la qalluuciyo sida xun loo isticmaalayo waa middaas midda Ilaahay ugu xisaabtamayo u jeedo midda bini'aadamku u jeedaa bini'aadamka ugu xisaabtamayo taliyahaaga hoosa ugu xisaabtamayo ururka kan kooxda kan horinta kan maxaan ku raadaya ururka saas kor ugu sii socon ilaa dawladda dhamaad ugu xisaabtamayso iyo maamulada meelaha ka jira oo dhan laakiin waxa u jeedin waa qaab daraynta xafidaadda amaanada waxa lagu dhiibo lagu aamin baaburkan dawladda iska leh baartigan iga bixiya baaburkaas kale muxuu ahay hebel iga iibi iyo muxuu ahay maxaa iga galay waxaan dayacan oo meesha daadsan warma xama meesha laga qaado qorgan haduu dhici waayo dawladda qori keenaysa maxaa iga galay caradiisa bacaadkiisa haysaga jiro wiligiis bayaan la safaynin oo aan la waxayn war waxa qalbiga aad ka leedahay waa waxaad ka dhaaratay oo magaca Ilaahay ugu dhaaratay waa waxa qalbigaaga ku jiro loo jeedo waxa loo jeedo waa lagu xisaabtamaya waa lagu waxayna hadii lagu xisaabtami waayeen qofkii inay kugu xisaabtanta ayda kugu xisaabtami weysay ayaa dambigeed iska leh saraakiisha si gaar ah ayaan rabaa ayagana oo dardaarmo maamaadii ama xigmadii askartu ay lahayd ee ahayd askari xun ma jira sarkaal xun ah jira iska ilaali macquul ma in askartu aan ayada saarno moogta wiilasha waa dib badan yihiin waa qaab daran yihiin waa sidaan wiil qaab daran ma jiro sarkaalkiisa iyo madaxdiisa ba qaab daran leh sida horeyba xigmadaasi ay ciidamadu ugu gaareen saraakiisha mas'uuliyadooda ha qaateen maxaan ku yiraahdaa dadaalo waxa aqliga saliimka oo la tusaaxo war waa dhimanay oo waa dhaawacmay oo waa haraaday oo waa dhibtoonay intaas oo dhan sabab u martaad leedahay waa mid aad maanta ku dhaaratay adoo intaas ku jira qaab daraha ku darsan magac xumaha ku darsan oo adduunyo beel ah muxuu dhaqan xumo kale ku darsan oo ayaduna aakhira beel ah marka intaas waxa wax ugu qiimo badan oo dhiigaagi aad hurtay sharafta iyo karaamada aad leedahay ilaali dadka aad dhiigaaga u horeysay sharaftooda iyo karaamadooda ilaali waa waanadii ugu dambeysay umaleynaa ilaahay idinkiis maalintii ugu horeysay oo aan maxaan ku raacay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si rasmi ah aad uga mid noqoteen weeye maanta maalmaha soo socdana ilaahay idinkiis waxyaabo kale oo maxaan ku raadayay hore u sii socon doona arinta maxaan ku raadayay madaxweyne Axmed uu ka dhawaajiyay ee ku saabsan jaamacadda anagu waxaan garanaynaa anigu waxaan aqaanaba waxbarashada ka jirtay arintaas jaamacadda Kismaayo iyo xaaladeeda maanta madaxweynaha inta soo soconaan uu sheegay haddana halkan uu ka sheegay arintaas soo saar loo eegay hadii aan la yiraahdo ama jaamacadda aan dib u furaynaa ardaydeeda ay ku soo noqonaysaa hadii aan la yiraahdo ama meel kale jaamacadda laga sameeyo baa xalan keenayna hadii aan la yiraahdo xalun baan keenayna hadii aan la yiraahdo laakiin inay jaamacadda Kismaayo dib u hana qaado oo ay adeegii ay u haysay mujtamaca oo xoog badan oo qurux badan hadaba way u haysaa magaalada meelo yar yar iyo maxaa ku hayde laakiin xarunteedii ama xaruntan xarun u dhiganta ama xaruntan lafteeda in ay dib ugu soo noqoto annaga dawladda federaalka iyo dawladda maxaan ku yiraahdaa Jubbaland iyo taliska Amisom
واسكور سنة هدي اللي يرادو حل دق نوان لا إيماننا إن شاء الله هدي اللي مركله حل الله عم بليو خير يقول يونات أيان إذن رجينا إلهي إذن كيس وأنا تقولي سنسان أنا قلنا وإذا قرب جوبنا هدي اللي إن شاء الله هذا وما ستهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.